application kaasoo lagu editing gareeyo videoska ama filimaanta. Marka browserkaaga soo furo, markaad soo furtid kadib waxaa ku qoreysaa google-ka ayaa waxaa ku qoreysaa Filmora. markaad ku qortid waxaa kusoo baxayo kan ugu horeeya, ku dhufanaysaa linkiga ugu horeeya download. marka hoos ayaa u soconaysaa, kan ugu hooseeya ayaa ku dhufanaysaa free download. markaa ku dhufatid wuu kusoo degayaa. kadib markuu kusoo dego isla marka waxaa ka helaysaa meesha downloadskaaga. filekaas kale la socdo caadi waaye, dhib ma lahan. marka la isticmaaleyna waa u baahaneynaa install ayaa leedahay hadeertaa. marka waa ku shubanee installka markuu ku dhamaado start now ayaa leedahay si uu u bilaabo. isla marka wuxuu ku geynayaa file explorer-kaaga ku geynaa. marka waxaa leedahay full features basic ku dhufanee. markuu kusoo baxo halkan ayaa ka ogaan kartaa. marka waa kana barnaamijka sida loo isticmaalo aad ayuu fudud yahay. meeshan waxaa ka ogaanaynaa inuu register-gareysan yahay iyo in kale. hoos ayaa waxaa kugu qoran ma register-gareysno. saa u register-gareyno marka cancel dhaad wuxuu kusoo saarayaa register-garey ama trail ku isticmaal ama hadeertan koodka geli. marka saa koodka u helno waa inaan la soo degnaa koodka. sidaada gal meesha uu ku shuba hadeertan aadayna Windows gal. Windows ka bacdi system.2 ka bacdi waxaa system.2 ku dhufo searchiga. markaa ku dhufatid system.2 drivers file ku qoran tahay ama searchiga waa isticmaali kartaa ama waa kana etc folder etc ku qoran tahay ayaa fureysaa. waxaa ku jiro file oo loo yaqaano hostiskaas ayaa desktop ka dhiganaynaa si oo wax koodka ugu bedelno. continue. marka waxaa aadaynaa filekii oo meesha ii yaala ayaa aadaya. adigana waxaa kasoo dhoolan gareysan kartaa description-ka hoos hadda koodka u baahan tahay. open with notepad ku fureynaa. notepad markaa ku furno marka waxaa dhex dhigaynaa. marka haddii uu qoraaladan dhan uusan lahayn wax dhiba ma lahan. meeshan ayaa waxaa la rabaa inaan soo dhigno kood yar oo hoos oo linkiga hoos ku qoran yahay. marka waxaa kasoo koobiyeysan kartaa hoos, waa kasoo koobiyeysan kartaa meesha description-ka. markaa soo koobiyeystid hoostan ku bastigarey. hoostan markaa ku bastigareysid filekaaga sidiisa u save garey. marka fileka sidiisa ayaa u save gareyneynaa. markaa save gareyno marka meeshiis inaan ku celino waaye. ama meeshii ku laabo ama backpack isticmaal. soo qaad isaga dhan folderka etc soo dhex dhig. continue. markuu ku dhameeyo hadda marka waxaa u baahanahay hadda waa soo host gareynay. waxaa u baahanaynaa username iyo password inaan gelina u baahanaynaa. full features basic register dheh. meeshan ayaa waxaa gelinaynaa key description-ka kugu qoran yahay. hoosuu kugu qoran yahay directly waa kasoo koobiyeysan kartaa. copy username-ka geli. registration code-kana copy waxaa gelisaa isagana registration code. register caadi ku dhufo. marka application aad u fudud waaye oo lagu editing gareeyo videoska filimaanta. waa barnaamij aad u xiiso badan. wuu dhameeyey. markaan waxaa leedahay marka meeshaan ku keenayo browserkaan ku keenayo waa iska xireysaa. application-kaaga waa isticmaali kartaa hadeertaan waana ku active gareysan yahay.